الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي أفرتناد يا كتاب كيني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وأمثلة يمثاله أن روينا قيبتي كساب سنيد الهمة العالية أن قيبتا قيبهان كسو جبين إن شاء الله تعالى مثال هذا وحا كمذا وحروينا دور مثال كتسو dad muslimiin ah oo meel sara intay ku fikireen gaadhay dad aan muslimiin xitaa ahayn oo intay meel sare ku fikireen gaadhay xitaa xayawaanka oo isaga naftiisu meel sare ilaa uu ka gaadho aan nasanaynin annamla mithaalka koowaad waxaan soo qaadaynaa namladu waa waxaa la yidhahda quraanyada ama quraanjada qofba siduu u yaqaanaba waa makhluuq ilaahay abuuray oo aada u yar laakiin sabirkeeda iyo go-aankeedu uu weyn yahay himad sarena ilaahay uu siiyey mu'arikhiintu culimmadu waxay sheegaan nin qaa'id ahaa hogaamiye ciidan oo la odhan jiray taymuur link ninkaasaa dagaal buu galay dagaalkii waa lagu jebiyey wuu murugooday wuxuu iska aaday meel buur ah halkaasa isagoo ciidankiisii jabay buu iskaga fikirayay meel intuu iska fadhiistay isagoo halkii fadhiya oo aada u fikiraya buu indhaha wuxuu ku qabtay baa layidhi quraanjo yar ama quraanyo yar oo koraysa dhagax ayay rabtaa inay kor u korto laakiin mar walba way kortaa way soo dhacdaa dhowr jeer markuu isha ku dhuftay buu markii dambe si fiican u fiiriyey wuu tiriyey marka 17 jeer ayay dhagixii kortay oo intaas soo dhacaysay mar walba 16 jeer markay soo dhacdayba markii 17aad bay kortay dhagixii oy dhalada meesha u sarreysa bay uga baxday ninkii marka su-aal buu isweydiiyey wuxuu ihi namla quraanjo yar oo aan quusanin 17 jeerna ku celisay hawshii iyada ahayd ilaa ay markii dambe ka guulaysato sidee suuragal ku taanuu markii ugu horreysay inaan jabo oo ciidankayga kala fakado ciidankiisii buu dib u abaabulay dagaalkii buuna dib mar labaad u galay go-aanna wuxuu ku qaatay 2 arrimood inuu mid uun helo inuu guulaysto iyo in uu maaragtay ay ku dhintaan oo sidaa lagu jebiyo mar kale waxaana dhacday baa la yidhahdaa inuu guulaystay oo dagaalkii isagoo markii u dambeysay uu goobtii u hadhay uu ku guulaystay bal u fiirso ninkaasi wuxuu ka faa'iidaystay xayawaanka makhluuqa yar ee quraanjada oo la abuuray waxyaabaha aada garan karto waxaa ka mid a quraanjo yar baa waxay dhisi jirtay dundumadii waagan caruurtahayn aan ku ciyaari jirnay ee xoogga badnayd ee moodeysay maaragtay buurta camala meelaha kasoo arki jirtay aada u dheer waxaa dhisay waa aboor iyo waxyaabo yaryar oo isu tegay baa dhisay marka waa dareemaysaa waa casiimada iyo go-aanka xooggiisa ayay la mid tahay waxaa ka mid a dadka aan muslimiinba ahayn oo meel weyn gaadhay waxaa ka mid a nin la odhan jiray abraham link oo waddanka maraykanka madaxweyne ka noqday waa madaxweynihii 16aad ee waddanka maraykanka wuxuu ahaa 1861 ilaa 1865 ayuu madaxweyne ninkaasi ka ahaa waa ninka dadka madow ee maraykanka in la xoreeyo buu sabab u noqday waagii dambena waa la dilay 1865 ayaa la dilay ninka abraham lincoln la yidhaahdo wuxuu isku dayey inuu markii u fiirso khadawaadkiiyo tallaabooyinka uu soo maray inuu madax ka noqdo gobol la yidhaahdo illinois magaalada chicago oo ah gobol aada iyo aada u weyn waagii dhoweedna obama gobolkii uu kasoo baxay ahaa waagu madaxweynaha noqonaya uu deganaa gobolkaasuu noqday inuu noqdo qofka loo doorto yacni governor ama inuu ka noqdo guddoomiyaha gobolka inuu noqdo marka waa laga guulaystay wuxuu isku dayey intuu siyaasadaba iska daayo inuu businesska galo oo rajul acmaal nin taajira uu noqdo tiina wuu ku fashilmay isagoo sidaa xaaladiisu too siyaasadii kusoo fashilmay ganacsigiina ku fashilmay baa xaaskiisii ula noolaana bay ka dhimatay markaasoo haddana macnawiyaadkiisii iyo dee niyadiisiiba baaba'day waxaa jira dadkan gaalada markaasoo kale in badanoo kamid weyba isdilaanba halkaa isagoo marayabaa wuxuu isku dayay in loo doorto kongareeska maraykanka tiina waa lagu jebiyey mar labaad intuu ka tegay buu noqdayba naa'ibka wadanka maraykan madaxweynaha maraykanka inuu naa'ib u noqdo ama ku-xigeen
tiina waa lagu jebiyey oo waa looga guulaystay. mar kaluu isku dayay inuu koongareeska maraykanka loo doorto, tiina waa lagu jebiyey. laakiin ugu dambeyn ninkii wuxuu wadaba wuxuu noqday madaxweynaha wadanka maraykanka ayuu noqday. haddaba su-aasha nagu jirtaa waxaa weeye, adigu waxaa tahay qof muslima, qof walbow. haddaba qofka muslimkaana waxa u tala istacin billaahi walaa tacjas. adigu ilaahay kaalmayso oo ha cajizin, umuurtaadana ha ka daalin, iskuna day inaad gaadho. insha allahu tacaala adiga ajir aad helayso. ajirna ma rajaynay, laakiin adigu ajir baabad ilaahay ka rajaynaysaa. waxyaabaha adigu naftaadu aad aragtay wax badan oo ka mid ah, dad waxaan aragnay aada iyo aada u dhibaataysan, dad gacmahala lugahala oo haddana guryo dhisanaya oo ilmo korsanaya ayaad ujeedaan, waxa dadka kale ay qabanayaan iyaguna qabanaya. marka taasi waxay ku tusinaysaa dad waxaad aragtay culimo oo waxyaabo waaweyn iyo dad muslimiin ahoo maaragtay waktigooda ka faa'iidaysta. marka aan ka faa'iidaysana waktigeena inaguna hanka sarena aan lahaano. qof walboona isku day kelimadan markaad dhegaysato, bishii 12 ee sanadka ugu dambeysay miilaadiga baan maraynaaye, sanadkan cusub ee dhalan doona, maxaad rabtaa inaad qabsato, maxaad rabtaa inaad noqoto, maxaad ka bedeli rabtaa noloshaada, maxaad rabtaa bisheeda. insha allahu tacaala marka adugu ku fikir, qalin iyo warqad qaado, wixii aad samayn lahayd eed iska bedeli lahayd adigu insha allahu tacaala ka shaqey. waxaad qaban kartana ku fikir marka horeba. jazaakum allahu khayr wabaarak allahu fiikum.